Gogashii nabadeed ee taalay deegaanka jiidali ee Gobolka Sanaag oo ay dhigeen waxgaradka deegaanka jiidali kuwaas oo u dhigay walaalahooda ay dariska yihiin ee Yube ayaa laga soo saaray qodobo dhanka nabadda ku salaysan waxaana waxgaradka iyo odayaasha deegaanka jiidali ee halkaasi ka hadlay isimada dhaqanka ee hogaaminaya garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaad Cabdisalaan ay sheegeen in nabadda si gogasheedu ay oolayso loona baahan yahay in walaalaha kale ay ka qayb qaataan sidii xal waara iyo nabad loo gaari lahaa waxaana halkaasi laga soo saaray qodobo ay ka mid ka hayeen shirweyne uu qaban doono garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo gogashiisa dhigay deegaanka Godaalo ee gobolka Sool dardaarmaya anigu in cabsida Ilaahay ay qof walba ay qalbigiisa ku jirto jiidali waxay u tahay taariikh maanta in garaadadii Maxamuud Garaad waxgaradkii Maxamuud Garaad ganacsatadii waaweyneed Maxamuud Garaad waxgaradkoodii oo dhan ay maanta ka soo qayb galeen shirka qaaliga ah Maxamuud Garaad maanta wuxuu isugu yimi shaqaqada ka dhacday biyoguduud inuu maydho oo dhex martay baadhigayaga iyo Nuux Umar waqtigan gogashu waxay taalay 2 bilood labada bilood waa sugaynay waa fadhinay haddana waa sii ooli doontaa nabadgelyada anagu markastana diyaar baan u nahay qodobada shirka Maxamuud Garaad ee ka qabsoomay magaalada Jiidali qodobka koobaad gogashii nabadda ee shilka dhimashada keenay ee biyo guduud ka dhacay ee labada marxuum ku geeriyoodeen ee muddada 2 bilood Jiidali taalay sidii bay u taallaa qodobka labaad xoojinta midnimada Maxamuud Garaad iyo adkaynta nabadgelyada dhexdiisa iyo beelaha la deriska ah qodobka saddexaad Maxamuud Garaad kowda bisha shanaad ee sanadka 2018 haddii alla idmo wuxuu ku ballamay shir guud oo gogashiisa uu dhigay garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed degmada Godaalo shirkaas oo turxaan bixin beesha ah qodobka afraad in la abuuro ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga xaalufka iyo nabaad guurka waxaana mamnuuc ka ah deegaanka Maxamuud Garaad shididda dhuxusha iyo goynta dhirta qoyan qodobka shanaad waxaanu taageersanahay baaqii isimada dhulbahante ee ku aadanaa masiirka ummadda inaanay matali karin koox iyo shakhsi gaar ah buu hoodlena aanan ka ogolayn colaad dambe oo laga huriyo go'aankaas ka soo baxay garaadada iyo waxgaradka beesha Maxamuud Garaad go'aankaas oo ka soo baxay garaadada iyo waxgaradka beesha Maxamuud Garaad garaadada waa wakiil garaad Cabdi Garaad Maxamed Garaad Maxamuud garaad Jaamac Garaad Ismaaciil garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed iyo cuqaasha beesha Maxamuud Garaad oo madasha tan fadhida oo xubin halkan uga hadli doonta warxaajadani waxa weeye way dhacday tolkiin waad aragtaan waanu isu nimi noo kaalaya waxaanu markaanu aragnay oo aanu waraysanay beelaweyntii Maxamuud Garaad naga soo horeysay aanu isla qaadanay qodobada halka laga sheegay oo ay koow ka tahay nabadgelyada in la adkeeyo iyo 5 sano haday gaadhiso in gogashaasi ay taalo oo gogol dhigtaan oo tiraadaan la qaadi maayo gogasha oo maxaa la yahay loo daxso oo loo dulqaato calaamada gobonimada weey wax idinku wanaagsanaada maahana waxba idin kaga xumaan maayaan aan maartay soo jeedinaya reer Jiidali iyaga gaar baa loo casuumayaayo waa meeshii sirka lagu aasaasay in sirka lagaga dhawaaqay gaad ba casuumada gaar baan idinku soo direynaa insha Allah hadii la haydmo rag iyo dumarba qoraalkii halka laga akhriyay oo ahaa shirka xiristiisii nabadgelyo saasa hadalku iskaga dhayahay nimanka Nuux Umar waanu deriska nahay oo xigtada nahay gobol baanu dhignay 2 bilood bay tii dhinacii wax geystay ee aanu ehelka u ahayn gogasha ay dhigeen ee 2 bilood loo fadhiyay way ku mahadsan isimada iyo waxgaradka Maxamuud Garaad ay talada ugu yeedheen waxay go'aamiyeen inay gogashu taalo wiibi waa Maxamuud Garaadna halkan uu ka askuma haddii uu ka askumayna waa qoys
qoyskaana arrintu way khusaysaa ee waxaan u nimid nabadayn iyo walaalayn haddii ilaahay yidhaahdana waanu ku soo noqonaynaa kabana tegayno waana joogaynaa hadalka gundhigiisu wuxuu yahay isimada iyo beesha jiidaliyeed ee go'aamiyey sanad hadday taallo gogashaasu inay oolayso waanu ku sugaynaa waa u fadhiyaynaa waa u dharcarxadda degaynaa waa u tollima fadhiyaynaa kaalayaannu leennahay gogashaa labada bilood taallay haddii halka kan garaadkii ugaadhyahan iyo haddii beedankaleyanaaleey axmed beelihiisii oo dhan baadhiyadiisii oo dhan ay isugu yimaadeen waxaa la guddoonsaday gogashaas yaan la furfurin laakiin aynu ku sinno maxamuud garaad oo maxamuud garaadna ha ogaadeen arrinta meesha aynu ka taagannahay hadday garaadadii iyo cuqaashii maxamuud garaad yimaadeenna waxay yidhaahdeen sanad hadday gaadhayso gogashaa lama furfurayo way oolaysaa dikri nolol Somali News magaalada Ceerigaabo gobolka Sanaag